kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada mar kale waxaa khadka si toosa uga jira gobolka Minnesota waa gobolka caanka ee Soomaalida faraha badan ee dalkan Mareykanka ay ku dhaqan yihiin Cabdirasaaq Dhoore oo horey loogu yaqaanay baraha bulshada isla markaasina ahaa nin saxafi ah sheeko yaqaan ah sheeko abuur ah ayaa haatan dhinaca kale waxa uu sheegay in la joogo xilligii uu tartami lahaa inuu noqdo gudoomiyaha gobolkaasi Minnesota haddaba Cabdirasaaq waxa aan kula xiriiray khadka gobolkaasi Cabdirasaaq ugu horreyntii soo dhawow aad baan ugu faraxsanahay inaan ku wareysanayo waxa laga yaabaa in badan oo dadka reer gobolkaasi su'aalo ka guuxay caawinaan ku weydiin doono bal ugu horreyntii iiga waran go'aankaagan aad ku goosatay inaad noqoto iraahdo gudoomiyaha gobolkaasi Saara Cabdi Axmed walaal qaali horta sharafay ii tahay waxaan dhihi karaa waa xilli muhiim ah oo ay Soomaalida rabaan su'aalaha oo kulligood ka dhex guuxay oo aaminsanahay inaad Saara adiga aad weydiin doonto haddaan hore u galo Saaro Soomaalida Minnesota afar heer oo kala duwan aan ku soo galnay dalkan mar wuxuu ahaa intaynu dowladnimada lahayn dad waxbarasho u yimid oo dal nabdoon ka soo tagay wayfka xiga wuxuu ahaa markuu dal qarannimada naga burburtay aan xiriyaha qaxootiga tagnay wayfka labaadna saasoo ku yimid wayfka saddexaad waa groupka anoo kala dalkii sii joogay muddo dambe haddana qaxootinimo ku yimid iyo wayf cusub oo hadda soo galay afartaa soo galootay Soomaaliya waxay keentay in Minnesota ay noqoto xarunta ummadda Soomaaliyeed walaal waxaa jirto shalay toole waxaan la shiray urur ay ku midaysan yihiin Soomaalida taraagiladayda ama taraagyada wataan waxay ii sheegeen kambani kasta oo Soomaaliya ugu yaraan 100 track inay iyaga leeyihiin iyo wax loo yaqaano owner operator dad iyaga taraagyadooda la imaado waxay iiga sheekeen marka arrin yar cajiib ah waxay ii sheegeen maalinta ciidda ama ha noqoto ciidul fidriga ama ha noqoto ciidul adxada maadaama Soomaalida dadka muslimka ay fasax wada qaataan dalka Mareykanka oo dhan dhaqaalihiisa isbedel ku dhaco taas waxay ku tuseedaa marka state-ka oo kaliya maahan Soomaalida waxay dhaqaajisaa dalkan iyo isku socodkiisa markay noqoto in badeeca la gooshiyo mid labaad walaal waxay tahay 100,000 Soomaaliyeed meeshan ku degannahay in ka badan 50% waa caruur markii loo yimaado xaggan shaqada 72 ilaa 75 Soomaalida way shaqaysaa marka walaal waxaan noqonay cudud muhiim ka ah jiritaanka waxaan loo yaqaan New American Vision maadaama ay marka dad wadaal aan noqonay waxaa dhacday in la dareemay awoodnada taasina ay keentay warqoomiyadan hal laga eriyo gobolkan Minnesota waxay sameeyeen wax la yiraahdo marka gentrification oo ay ugu tala galeen oo xitaa wax isku dayeen eriyada ay Soomaalida degan tahay in wada la mariyo marka walaal maadaama caalamkii qaasatan Mareykanka oo dhan uu inagana ataagayo waxay lama huraan noqotay inaan u istaago xilka gudoomiyaha gobolka oo aan ka rumeeyo quwadda iyo cududda aan dalkan ku leenahay horta waxa ugu weynaysa haray tartankayga uu ku yimid waa in lahaanshaheena Soomaaliga aan soo celiyo walaal qaali marka waa ka dhab xilligan la joogo in aad u tartamaysid xilka gudoomiyaha gobolka Minnesota walaal dhab oo kaliya maahan waa waajib inaan tartamo oo waxaa jirto markuu dalku nabdan yahay oo qof waliba shaqadiisa gurigiisa la kala aadayo qasab ma aha inuu dadka Soomaaliga inta hoggaanka galaan ay leadership wax ka noqdaan laakiin hadda maadaama ay qasab tahay inaan leadership ka qayb qaadano haddana aysan jirin dad badan oo ku dhiira karo waxay noqotay waajib ah qarannimo waajib Soomaalinimo ah waajib Soomaalinimo kaliya aan ahayn Soomaali Americanimo ah in aan tartamo waliba rajadeeduna walaal aad u sareysaa waa tahay qofka inuu tartamo shuruudaha laga rabo waxa qayb ka ah 2,000 oo cod oo saxiixayaal inuu haysto oo gobolka uu ka tartamaya cirif ah gobolka xataa xuduudaha gobolada kale uu la leeyahay waa inaad gaari kartaa oo aad heli kartaa saxiixadaas meel kala gadisan sidee bay dadku kugu kalsoon yihiin ma haysataa taageerada cod ee dadka gobolka beegad walaal Saaro sanadii la soo dhaafay 2025 waxaan u tartamay duqa magaalada aan deganahay oo la yiraahdo West Minneapolis loona yaqaano Hopkins
tartankii markaan galay waxaan intaan campaignka ku jiray maadaama ay arrintu ay tahay arrin magaalo oo keliya haddana aan nahay meesha habkani soomaalida aad ay ugu yareen markaa waxaan la kulmay dadkii caddaanka waxaan la kulmay dadka ajaanibiga kale sida moongihii chineeskii carabtii hindidii qolyooyinka meesha isla joogo soomaali aan keliya aan ahayn kulli aan la kulmay taa marka horta waxay igu dhiirigeliday intaan ku jiray campaignka guddoomiyaha maxaa la yidhaha duqa magaalada habkanis waxay ii furtay access ah inaan isbaranno dad badan oo american ah kadib waxaa dhacday inkastoo aanan ku guulaysan xilkii waxaa dhacday in aan barto baahida ka jirta stateka marka campaignka hore aan u galay gobolka magaalada habkanis iyaa hortoor waxay ii furtay access ah in aan minnesota oo dhan gaari karo kadib maxaan sameeyey muddo 8 bilood ah inta aanan arrimaha soomaali iyo arrinteeda aan soomaali ku shaacin waxaan u baxay bannaanada stateka gobolkan wuxuu ka kooban yahay 8 gole deegaan doorasho oo annaga dhan 8 xildhibaan aan ku leenahay federaalka labada degme ee 5 iyo 4 iyo horta dadkoo dhan degan yihiin waana Minneapolis iyo St. Paul iyo magaalooyinka sababanka ah laakiin tusaale ahaan gobolka koowaad iyo gobolka toddobaad waa beer qof bini aadan ah kuma noolo marka waxaan bilaabay marka beeraleyda inaan u tago inaan Duluth tago inaan Otsego tago inaan Buffalo tago inaan tago maxaa la yiraahdaa Rochester oo ayadana ay Soomaali badan degan tahay marka inta aan campaignka Soomaalida la imaan walaal waxaan la kulmay dhammaan reer Minnesota waxa kale oo ku dhisan yahay campaignka teamka ila shaqaynayo waxa madaxweyne u ah nin lawyer ah oo haddana ka ah madaxweyne ku-xigeenka jaamacadan Hamlin University oo kamid ah jaamacadaha ugu waaweyn oo iyadana waxay sameeyeen buugaag aniga aan qoray iyo galaas ahaan looga dhigaa meesha marka jaamacadan xiriir aan la lahaa soo walaal connectionkayga hadday Soomaalida arkeeda mooyee adduunyada kale reer Minnesota midan kale soo qaadeen 2000 marka waad haysataa 2000 oo cod durbaba walaal 5000 aan u socdaa haddana 3600 aan haystaa waayo waxaa jirto markaad 2000 geysa meesha haddii hal qof oo adreeskiisa qaldamo doorashadana laga saaree si aan marka taa ugu dhicin hadafka waxaan u bedelnaa 5000 marka saan hadda waxaan ku maraynaa 2800 Soomaalidana waxaan ka codsaday inay 2000 kale igu daraan way Cabdirasaaq in governor gobol loo tartamo qof siyaasadda hore aan ugu soo jirin oo macnaha aanan xilal soo qabanin way adagto waa wax culus ay dadku leeyihiin gaar ahaan gobolka aad joogtid oo kaleeto oo xataa mayorkii magaalada Minneapolis Soomaalidu wixii ka dhacay la xasuusto Cumar Faatax markii uu tartamayay xilli adag ayaa lagu jiraa oo Soomaalidu ay ku wada leeyihiin ama in badan oo kamid ah ay naqdinayaan inaad tiraahdo governor ayaan isu soo taagay oo ay ku leeyihiin war han ugu dirin Donald Trump iyo dadka la midka ah maxaad ugu jawaabaysaa dadkaas walaal waa mahadsantahay horta hore arrintan Faatix aan wax yar ka leeyahay kadib sheekadan uu soo noqonaa sida runta Cumar Faatax uu ku guuleystay mayorka magaalada Minneapolis oo habeenkii doorashada markay dhacday cod bixintii wixii la tiriyay mayorka Minneapolis waxaan noqday Cumar Faatax xisbigii iyo dadkii aan la ogoleen way fariisteen waxay dheen xilligan diyaar uma nihin qof Soomaali loo dhiibo waxay sameeyeen extension 24 hour kale oo la yiri barbaraa la noqday cod bixin kale la aadaa cod tirin kaleeto tii labaad markii la aadana Cumar Faatax hadana wuu guuleystay marka walaal horta dadkaanan fahansanin mooyee laakiin codadkii ugu dambeeyay doorashada Cumar Faatax kuma soo bixin oo labadaba uu ku soo baxay walaal labadaba uu ku soo baxay laakiin waxa public la tusaa khaasatan waxa Soomaalida la tusaa inuu Cumar guul dareystay sida xaqiiqadana Cumar wuu helay xilka taa marka waxay ku tusay walaal arrimahan ku dhisan xisbiyada oo sidaan ognahay Mareykanku wuxuu u taagan laba xisbi waxa jira dimuqraadi iyo republican Soomaalidana meeshan joogta badanaana dimuqraadiga wax ku darsadaan haddana waa wax ku dhisan qowda maqashii waxna ha u qaban sababta qofka Soomaaliga walaal waxa loo ogol yahay waxa loo yaqaano selectionka ee looma ogolo election marka waxa imaanaysa Cabdirasaaq Dhoore adoona xafiis soo qaban adoona siyaasadda dalka mid ahayn sideed governor ku noqon kartaa walaal horta mid koowaad waxa la yiraahdaa dii lagu mooso wala is amaanaa anigu waxaan nin qoraa ah waxaan qoray 12 buuggeygii noqday best selling ee ugu fiicnaa ee aad loo gatay waxa la yiraahdaa Minnesota Gate waxaana ka hadlaa ummadda bara sharciyada iyo qaab dhismeedka ay Minnesota ku dhisan tahay
walaal sanadii 2012 ilaa hadda waxaan ku dhex jiray siyaasadda Minnesota hadday noqon lahayd qoladan amniga iyo qolada siyaasadda marka saaxadan uun soo gelin mooye walaal awood hogaamino waa leeyahay xiriir iyo connection fiicanna waan haystaa xisbiga dimuqraadiga ayaa dabcan u sharaxan tahay sida aan filayo ama aad iska diiwaan gelisay marka xisbigu ma ku taageersan yahay may walaal aan xisbiga dimuqraadiga uma sharaxni xisbiga dimuqraadiga uma sharaxni walaal waxa waaye haddaan si kale ku weydiiyo laba xisbi unbaa jira waddankan sida adigaba aad sheegtay dimuqraadi iyo republican xisbigee tahay walaal labadaba miyi waxaan u taaganaa wax loo yaqaana independent oo waxa igu kalifaa inaan haddii aad xisbi ka mid tahay uma baahnid laba kun oo saxiix xisbigaa ku endorse garaynaa waa tartami marka republicaanka dad baa u tartamayo hal qofaana kasoo bixi doono dimuqraadigana islaantan emil yidhaha u badan inay soo saaraan waxaa kaloo jirta marka uu dastuurka maraykanka iyo dastuurka Minnesota ay qorayaan qof kasta oo American ah oo 20 sano ka weyn in uu u tartami karo xilka dalka ugu sarreeya ee gudoomiyaha gobolka si uu ku gaarataan wuxuu u baahan yahay in uu helo 2,000 oo qof oo tira qofkan inagu nuu matala waa labada kuna waxay noqonaysaa xisbi loo yaqaan independent oo madax banaan marka aanu dimuqraadina ma jiri republican ma jiri walaal xisbi waxaan wataa la yiraahdo independent oo ka madax banaan labada xisbi waxa aan siyaasadda aan wax ku dhisay iyo rajada aan leeyahay waxa waaye waxa ay ku liitaan labada xisbi yaan ku wacanahay oo labada xisbi waxay ku liitay wada walaal waayahay haddaan si kaleeto u dhigo xilli soomaalida gobolkaasi la burbursanayo oo dhibaato ay saaran tahay oo il gaara lagu hayo ood ogtahay wixii ka dhacaya gobolka oo in ay ayaga diiradda saaran tahay ay u muuqatay ganacsigooda iyo dadka soomaalida ah baa waxaad leedahay waxaan u tartamayaa gudoomiyaha gobolkaasi guud ahaan marka sidee bay kuugu sahlanaan kartaa ama aad ugu babacdhigi kartaa iyadoo xataa xisbi uusan ku wadanin soomaalida culays fara badan uu saaran yahay Donald Trump iyo dowladdiisa il gaar ay ku hayaan soo galootiga iyo soomaalidaba sidee kuugu sahlanaan doontaa inaad maaragtay aad ku soo bixi kartid xilkaasi aad raadinayso wal zahra horta hore waxaan rabnaa inaan meesha ka saarno President Donald J. Trump waxa waa commander in chief waa madaxweynaha dalka madaxweynaha dalkane yani sharci iyo xeer dastuuri ah ayaa wuxuu ka dhigaa ilaaliyaha ummadda Mareykanka la yiraahdo marka madaxweynuhu horta hore yani si gooniya Soomaali umana dhibaatay kari waxna kama bedeli karo oo dalkan 400 sano ayuu sharci lahaa waana dalka kaliya ee qof sharciga ka sareeyo uusan jirin marka midaan ah Trump aana nacab iyo cunsuriya jiro iyo waxa walaal waa propaganda loogu talagalay in ummadda Mareykanka ah lagu kala abuuro cabsi waxaa jirta hadda ka hor in masaajidda Minneapolis dab lagu qaban jiray qolo idaacada ay waraysto Trump aana nacab oo soo dirooy habeenkaa waxaan iri war ma laga yaabaa qofka masaajidka gubayo inuu yahay qof maskaxiyan xanuunsan xaqiiqatan waxa soo baxday qofka inuu xanuunsanaa walaal marka waxaa jirto aniga maanta markaan dhibaato sameeyo anoo Soomaali joogo la dhihi maayo Cabdirasaaq dhibaato sameeyeen reer hebel la dhahaa laakiin markaan Mareykan joogno wax kasto qalad oo sameeyo waxa la leeyahay Soomaaliya qalad sameeyay weyna jiraan walaal Soomaali badan oo qaladaad geysteen sidaas darteed marka waxa jirto marka aan inteena qaldan in matalaan oo wax dambiga dhacay waxa waa lacagay waxba la dhunsaday haddaynu marka kulligeen baqanno waxaynu noqonaynaa walaal tuug iyo tuqaris dalkan sharciya jiro qofka waxada waa la xukumaa taana ani iga reemayso inaan tartamo laakiin mid kala meesha ku jirto walaal Zahray qofka Minneapolis ku dhashay ayaa ilmo ku dhalooy Minneapolis walaal meel uma socono dalkan waa dalkeeni waxa soo harta marka waxaa jiray dal la yiraahdo Puerto Rico wuxuu yahay la yiraahdaa territory waayo oo state looma ogola wali sababta state nimada looga ilaalina waxay tahay hadduu state noqdo madaxweynaha Mareykanka Puerto Rico sameynayso si taa lamida codka Soomaalida ee Minnesota waxay sameeyaan siyaasadda Minnesota sababtoo ah Minnesota markii halkaas igu jooji ayagii laftirkoodii oo leedahay awood bay ku leeyihiin oo codka Minnesota iyaga jiheeyo baanan ahayn dad isku duuban oo Soomaalidu ay qaybsan tahay oo wixii dhacay aan xasuusanaa xilliyadii ugu dambeysay doorashooyinka Cumar Faatax iyo wixii lamida markii ay socdeen sidee baad Soomaalida xataa uga gadi kartaa hankaagan very good walaal waxaa jira wax la yiraahdo background check
aniga intaanan siyaasad iyo riwaayad soo gelin muddo 10 sana ummadda Soomaaliyeed hortaagnaa intaana waxaan ka shaqaynaya Soomaalinimo iyo midnimo oo melihi qalfiyad qaldan oo laygu soo helayo Cabdirasaaq oo Soomaali kala qoqobayo marka waxaan ninka kaliya firin ku ah arintaas ninka kaliya u qalmo ee maanta Soomaali oo dhan waliba hadda markaad fiirido teamkayga reer xataa wax isugu yimid kuma jiraan waa dad wada PhD holder waa dad wada well educated waa dadkii labeenti state-ka ah waxa soo harta ragga siyaasiyiinta iyo gabdhaha siyaasiyiinta ma inaan xiriir behind the scene aan leenahay yes laakiin in ay garab istaagaan ay bush garayaan ma samay karaan waayo waxay kamid yihiin xisbigooda waxay wataan qof marka waxay ku biraysan yihiin qofka laakiin markay timaado midnimada Soomaaliyeed walaal waxaan haystaa credibility nin Soomaali isku hay kara inaan ahay taasaan ii fududaynaysa inaan helo codka Soomaaliyeed oo dhan ahmiyadda ugu koobaad 1 iyo 2 maxay tahay waxaad qaban doontid haddii aad noqotid gudoomiyaha Minnesota walaal waxaan soo diyaarinay siyaasad ku dhisan amni education iyo waxaan loo yaqaan economy dhaqaalaha siyaasadda oo dhaqaalaha midda amniga iyo mid waxbarashada walaal waxaa jirto Minnesota waxaa la yiraahdaa wax loo yaqaano 500 fortune companieska oo per capita in the world hadii la yiraahdo Minnesota number 1 ah oo waxay Minnesota haysaa kambaniyada adduunka ugu waaweyn waxay marka sameeyaan 15% ilaa 14% dhaqaalaheena wuxuu ku dhisan yahay waxaan loo yaqaano manufacturing oo casriga ah manufacturing wax soo saarka warshadaynta casriga marka taa waxay keenaydaa marka maanta Soomaalida aad fiirido 15% waa health care systemkay ku jiraan oo waa dhaqaatiir waa nurse waa PCA oo caafimaadka dalka gacantay ku hayaan marka aniga state ahaan markaan iraado state waxaan soo diyaarinay siyaasad ku dhisan tacliinta oo tacliinta waxaan ku dareynaa wax loo yaqaano early education technology oo maadaama uu yahay state sarreeyo wax soo saarkiisa in dugsiyada hoose kan dhexe iyo kan sare aan AI-gan iyo technology hadda adduunka u aadayo laga dhiga waxbarashada waxa soo hartay waxaan diyaarinay program la yiraahdo Minnesota emergency network in aan isku xirno booliiska ambulance-ka iyo firefighterska sababta dhibaatada jirto waxa waaye waxaa jira health care wuxuu leeyahay back end iyo front end back end markii la Minnesota waxay haystaa Mayo Clinic isbitaallo waaweyn laakiin qofkii isbitaalka cid geynaysa ma leh waa ambulance ma lihin markii uu dhacay dilkii George Floyd wixii ka dambeeyay booliis ma jira dalkii marka siyaasadeena ugu badan waxa waaye booliiska dowdamiska iyo qoladan loo yaqaan EMT-da ambulance-yada inaan resource badan u soo saarno inaan ayaga indoor maxaa la yiraahdaa empower gareyno si qofka 30 daqiiqo isbitaal ku gaari lahaa aan soo gaarsiino 3 daqiiqo waliba markaan jaalidaha cadaanka aan la shiraayo qodobka aad u soo dhaweeyeen waxa soo ambalaasyo inta badan waa arkaa markaan tago gobolka laakiin waxaad leedahay way ku yar yihiin mase shaqooyinkay qabtaan zahra walaal hadda ambulance wacata adoo wadnaha ama heart attack oo wax u jiro midda ugu dhaqsiyaha badan 30 daqiiqo kuugu imaanay oo EMT-ga waa la yasaa mushaaraad fiican ma haystaan magaaladan Mahoman oo kaleeta 2 saac ay qaadanay inay ambulance timaado odsiga haddaad tagto 46 daqiiqo qaadanay Minneapolis Soomaalida dhexdeeda hadduu 911 wacdo booliisku wuxuu leeyahay haddii aysan wax dhibaa jirin insurance-kaaga wac marka waxaan safety-ga dalka uu dhumay wuxuuna ku dhumay dimuqraadi iyo republican intay siyaasad isku haysteen waxaa burburay amniga bulshada marka waxaan sameynay siyaasad la yiraahdo state of truth siyaasad ku dhisan run oo amnigi wixii dhan la soo celinayay adeegyadii muhiimka u ahaa hadda city council-ka Minneapolis maaldood waxay xil demotion ku sameynayeen commission ka haysto waxaan loo yaqaano community safety waxaad arkaydaa baabuurta booliiska Minneapolis booliisku ma jiro nal bisa ka shidan waayo ma haysana tire ciidan oo booliis oo magaalada ku filan ama state ku filan waayo wixii dhan bureaucracy iyo wuxuu ku burburay isqalaafka xisbiyada marka waxay Minnesota aniga danta iga dhex aragtay waxay tahay uma xirxirnay walaal 3 dhibaato ee dalka xirxirtay kow ganacsiga waaweynaa gacnaha uma xirxiran oo lacag ma qaadanayo inta campaign samee lacag ma qaadanayo labo waxaan baaga la yiraahdo lobbyista oo siyaasad gooniya riixayna kama mid yihiin marka waxaa dhacday nin la yiraahdo Jesse Fanjura
iyo hadda ka hor sideedoo kale wuxuu sameeyey si independent u cararay wuuna helay kuma uusan helin inuu siyaasi ahaa wuxuu ku helay in siyaasadda dalka ka jirto waxay keentay maxaa la yidhaahdaa Rene Good iyo Alex waxay u dhinteen siyaasad xumo ay xisbiyada haystaan marka aniga waxaa layga dhex arkaa nin amniga dalka soo celi karo haddana aqoon oo muddo ku dhex jira dadka Soomaalida ah ee aad ka soo jeedid ee gobolka dadyooga soo galootiga ah ugu badan markii la fiiriyo dhibaatooyin fara badan bay tabanayaan wax badanna way gaareen maaragtay bartilmaameed gaar inay yihiin waa laga dhawaajinayaa inta badan warbaahinta markaad aragto maxay yihiin waxa aad taasi wax uga qaban kartid ama aad wax ka bedeli kartid very good walaal Soomaalida contribution kooda sanadkii waa 8.6 billion ee dhaqaalaha Minnesota ku soo daraan Afrikaanka oo dhan ee dalka joogana waa 4.6 billion ay bixiyaan Asiaanka oo dhan marka la isku daro 26 billion ay bixiyaan Latinoga oo 24 dal ahna 59 billion ay bixiyaan marka taa waxay ku tuseedaa horta hore dalkii dhaqaalihiisa gacanta ku haynaa tusaale ahaan markii la yiraahdo mallkan la yiraahdo Carmel Mall intan yar ay Metro Surge ay timid usbuuci waxaa dhumayday 8 milyan oo dollar ay Soomaali qasaaraysay waxaa kaloo cajiiba 170 business ee Soomaaliya 150 kamid ah hooyo Soomaaliya iska leh oo hooyadu ku dhisan yahay Minnesota hooyadii aad dayacan walaal waxay ku dayacan tahay inaysan ama Ingiriis aqoon ama sharciyada aysan aqoon ama paperwork aysan aqoon marka system waxaan dhisayaa Soomaalida dalkan wuxuu sameeyaa waxaa jirto maama oo aad u qaab daran oo ay dhahaan waxa qofka madow laga qarinayo buuga lagu qoraa oo waxay ka wadaan dadka madowga wax ma aqriyaan sidaa darteed maadaama aan businessyada iyo howlaha aan haysano wax ma akhrino walaal sababtan wax u akhri weynina waxa waa ama English ku qoran yahay ama ma jira system facilitation ugu sameeynayo marka waxaan rabaa inaan dawladnimada Soomaaliga aan fahansiyo inaan afka ay yaqeenin af Soomaaliga ay yaqeenin ama fahamka Soomaaliga aan dawladda ka dhigo waayo maanta hooyadii businesskay gacanta ku haydaa aabihi taraago gacanta ku haya ubadkina jaamacadii u aadooyaa community aad saa u dhisanaanahay laakiin walaal wax akhrinta iyo dawladdii oo nalooga dhigay inay nacab tahay waxay keentay inaan marti xero qaxooti jooga camal u dhaqanno waxaan soo celin rabaa marka hanka inaan dad Mareykan aan nahay oo dalkan wax ka qaybsan karo oo dalkan horumari karo Cabdirasaaq Dhoore oo isagu qora ah dhinac markii laga eegana sheekayaqaan ah xarumaha baraha bulshada in badan dadka Soomaalida kala hadli jiray isla markaasina suxufi sheeka sameeye ah ayaa haatan waxa uu sheegay inuu taagan yahay gudoomiyaha gobolkaasi Minnesota wuxuuna igu warramay khadka telefoonka si toos ah gobolkaasi ayadoo su'aalo badan oo arrinkaas ku saabsan aan ku weydiiyay wareysigan aad baad u mahadsantahay Cabdirasaaq